nimanku waa ay kala duwan yihiin dhaqan ahaan iyo dabeecad ahaanba. waxaa jira kuwa dabeecadoodii iyo dhaqankoodii ay wanaagsan yihiin iyo kuwa aanan fiicneenba. muuqaalkani waxaan kuu soo gudbin doonaa kuwa leh dhaqan aad u foolxun. walaashayda qaaliga ahay, ha guursan sideedan nin mid ka mid ah. kow, ha guursan ninka isticmaala waxyaabaha maanka dooriya, ha ahaato nooc walba oo ka mid ah maandooriyaasha. hana isdhihin wuu ka tegi doonaa ama wuu ka go'i doonaa. walaashayda qaaliga ahay, ha gelinin naftaada malmaleentaas oo laga yaabo inaysan dhacaynin. badanaa guryo ku burburay maandooriyo dartiisa. labo, ha guursan ninka bakhiilka ah, ka fogow gabi ahaanba bakhiilka. maxaa yeelay bakhiiltinimadu waa dabeecad aan la bedeli karin. taa waxaynu ku garan karnaa kuwa badan oo horay loo soo tijaabiyey. haddii aad doonayso inaad ogaato, waa inaad si fiican u weydiisaa dadka ay shaqo wadaaga ay yihiin, ama kuwa isla degan yihiin, ama kuwa ay saaxiibada yihiin, iyo kuwa is yaqaanaanba. saddex, ha guursan ninka beenta ay xirfad u tahay, kaasoo wax walba beeninaya, hadal walba uu kuu sheegana ay been tahay, sida shaqadiisa, mushaarbileedkiisa iyo shahaadadiisa aqooneed. ka fogow beenta, maxaa yeelay beentu waa tilmaam xun oo argagax gelinaysa noloshaada qurxoon. afar, ha guursan ninka aan mas'uuliyad qaadi karin. waa midka aanan gudan karin mas'uuliyadda ka saaran shaqadiisa iyo mas'uuliyadda ka saaran gabdhaha walaalihiisba. maxaa yeelay xaaska sanadooyin guurka kadib waxay noqonaysaa sida walaashiisa oo kale. hala yaabin, tani waa xaqiiqo iska hubi sida uu ula dhaqmayo gabdhaha walaalihiisa. ma uu fulinayaa codsiyadooda? ma qaadayaa mas'uuliyadooda? mise wuxuu ugu tegayaa shay walba in ayaga uun qabsadaan? shan, ha guursan ninka aadka u ficiltanka badan ama u xanaaqa badan. waa midka haddii uu arko wax aanan cajibgelinaynin burburinaya dhammaan wax hortiisa ahaaday, ama afkiisa ka sii daynaya caayda midda ugu foosha xun. ogow, dabeecadu inta badan isma bedesho si kastoo aad iskugu daydo. hamoodsiinin naftaada inaad asiga bedeli doonto. laba midkood buu noqon: inaad sidiisa aad ku aqbashaa ama aad iskaga tagtaa gebi ahaanba. lix, ha guursan ninka qalbiga adag. waa midka aan u dhimrin ama aanan u naxariisan midka tabarta daran tabardaradiisa, ama qofka aanan waxba qabsan karin, xaaladihiisa oo dhanna ay tahay sida seefta oo kale, oo wax jixinjix ah aan laga helaynin. walaashaydii, ninka naxariista badani waa midka mar walba saacida xaaskiisa. toddobo, ha guursan ninka aanan bixinaynin masruufka. waa midka aanan bixinaynin nafaqada ehelkiisa ilaa uu ku qasbo xaaskiisa inay wax ka bixiso dhaxalkeeda ama mushaarbileedkeedaba. sideed, ha guursan midka shabeelnaagoodka ah ama naagaraaca badan. waa midka ka daba dhareera mar walba u arko haweeney aad u wacan ama qurxoon, xataa midda shaqaalada ah ay kuu noqoto naagaraaciisa sabab aad ku ayaan darsato kuna quursato. tilmaamtani waa dabeecad uusan awoodin inuu ka takhalluso, haba doonee.